على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا عاوة وحكى بلابنا بمشيئة الله تبارك وتعالى بلغ سورة القيامة وحونا كويجي هاي سورة الإنسان بمشيئة الله تبارك وتعالى آيات ذا سيدية طبنات سورة القيامة هو سورة مكية آياتهeduna waa 40 aayadood waxay ka mid tahay quraankii nabiga ku soo degay calayhi salaatu wasalaam intaanu Makka ka hijroonin waa sida loo badan yahay aqwaal kale ay jirta laakiin sida loo badan yahay basaasa suuradan mawduuceedu maadaama ay suura makiya tahay waa al-aqeeda al-islaamiyya aqeedada islaamka ay ku bilaabanaysaa kuna dhamaanaysaa mabaadidii tawxiidka iyo aqeedada ee ay ka hor yimaadeen mushrikiintii quraysheed ay ka hor yimaadeen ee diideen wax kamida ayay ka hadlaysaa siiba waxay xooga saaraysaa qiyaamada iyo isa soo nooleynta dambe iyo isa soo saarida dambe iyo is abaalmarinta ayay suuradu ka waramaysaa iyadoo oo markaa dadkii beeniyayna xaaladooda si tilmaami doonta insha Allah Allah wuxuu subhanallah uqsimu waxaan ku dhaartay bi yawmil qiyaamah qiyaamaha maalintiisaan ku dhaartay wala uqsimu waxaan ku dhaartay bin nafsil lawama nafta canaanashada badan waa nafta muuminka inta qofka muuminka waa canaananaya wixii waajibaadahe أعمال خير وناكسن وخير وكجابيه بسكو عنانية وحي شره معصيه كدعينا وسكو عنانية لا تبعثن مركا هالكاس جوابك قسمك هالكاس كريد لا تبعثن والد صور ثارية وحلو دارني وكاس أيحسب موحو ملينا يا الإنسان إنسانكم موحو ملينا يا ألا نجمع إننا نسوكل من عظامه لفهيسا إننا نسوكل من الملاينية بلى وصوكل من كراه قادرين حالان كرنه قادرين حالان هيكوي كره على أن نسوي إنا نصنه بنانه فريهيس أصلا حتى سيدو ذاك صديقنا وحكى لنا إسكبده بل يريد وحدون يا الإنسان إنسانك وحدون يا ليفجر أن يفجر إنه بيني أمامه أي ما أمامه وحرتيسا مالك هرتيسا إنه بيني أي دونيا وبينين تاوس كغسي الصعودة يسأله سؤالي إنسان كاس آخر بيني أيانا واقورما يوم القيامة قيامها مالك سوا قورما سؤال لسه تاقين فإذا بريق مركو وريرو البصر أرق مركو وريرو أو خسف مذوبادو القمر ضيح مذوبادو أو جمع لكل مياه الشمس قرحدي والقمر قرحدي ضيح اللي سكينه يقول وحورنا يا الإنسان إنسانك وحورنا يا يومئذ حلقا مال كيسة أين واهلك المفر ما شاء الله عره ما الله عره وحقه كلا هيسكدا يا أنت كهرو لا وزر أي لا ملجأ ميل لما جنجلا مشرت مال أنت ميل إله إلا غبح صدو عذابك إله إلا لما جنجلي كراه مشرتو إلى ربك حقي صنبو هذا لا إلى غيره يومئذ مالك حلق مالك المستقر أي المرجع والمصير والمنقلب ماشى لقدام بين أيوه إلا لقو حسيل الدونا ينبأ وحلو شيء دونا الإنسان إنسانك وحلو شيء دونا يومئذ حلقا مالنتيسا بما قدم وحو هرو سميي وأخر وحو كذلك سميي با أعمال سيهوري كويسي دنبابا أما بما قدم وحو هر مرصدي إسكه الرئيسية وأخر وحو أدونكي كغيمي أدونكي كغسو تغيبا بل الإنسان اسكدا يا إنسانك على نفسه نفتيسة بصيرة بدكم مرخاتيوي بدكم مرخاتك عيوي ولو ألقى هبتورو هبط ضادي معاذيره وصوب الضلعه معاذيره عذر دارديسه آيات كان هره سورة waxay kaga waramaysaa
maalinka qiyaame Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay in la is soo noolaynayo oo la is xisaabinayo oo la is abaal marinayo oo qofkii wanaagsanaa wanaagiisii la kulmayo qofkii xumaantiisii la kulmayo meeshaana laba daarooduna ay ku yaaliino aljannatu wan naar la kala yiraahdo dadkuna ay labadaan u qaybsamayaan fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa hayna siiyo marka maalinta weyna cadiimka ah iman doonta nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay aad u dhowdahay waqtigeedii uu soo dhawaaday isaga laftiisa nabiga soo bixistiisa laftiisu waxay ahayd calaamad kamid ah min calaamaat as-saa'a nabiyyu aakhir az-zaman baaba la oranay wuxuuna tilmaamay buustu ana wa saa'atu kahatayn aniga iyo saacadii qiyaamay saasaan isku naysay labada farood inta fartaasi farta ka horeyso umman qiyaamada dhicitaankeeda ka soo horeeya ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay bal gaaladii quraysheed mabaadida ay diiday ee ay meel adag iska taagtay ee wax kasta oo la sameeyo xataa qaarkoodii madaxda waxa laga sheegay maxamedow xataa hadii waxa dhig sheegaysaan dhacaan oo qiyaamo dhaco oo la isoo nooleeyo oo la xisaabiyo kuma rumaynayo waxay ka soo qaadeen nabiga arinta halka waxa sheegaya qiyaamo ka sheekeynaya inuu banin waalayahay إذا مزقتم هل ننبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة halkaas ka taagnaa warninka waxa sheegaya markaad dhimataan ee ciid noqotaan ee wada go'go'daan ee ciid kala raacraacdaan ayaad leedin soo nooleynaya ninkaas ma Ilaahay buu ku beel abuuranaya mise waa nin waalan labadaas ay u taagnaa qiyaamadaas marka Ilaahay aad uga warramaayo meelo fara badan quraanka ku soo celceliyaayo lagu hoga tusaaleeyayo si aad loogu waadixiyaa amthila cadna iyadoo loo keenayo waxa laga sheekayaa mararka qaar dad intay Ilaahay soo nooleeyay baa looga warramaa dhulkan dhimanaya ee abaarasanaya ee amaaradaha iyo calaamadaha nolosha oo dhan ka guureysay haddana Ilaahay roob ku shubay soo nooleynay kadalika al-khuruuj ee loogu misaaliyaa markaas suurada aayadka ka waramaya Allah wuxuu subhanahu la uqsim laadani wa soo marayo tawkiid wi laadin naafiyada ahayd ma min baabi tawkiid batano kale la uqsim waxaan ku dhaaranayaa bi yawmil qiyaamah qiyaamaha maalintiisaan ku dhaartay iyadii suurada lafti waaba lagu bilaabay waaba lagu dhaartayba say u yaqiinsadaan wax jira inuu yahay wala uqsim waxaan ku dhaaranayaa bin nafti allawamati anaanashada badnay waa nafta muuminka la yiriyo culimada qaar koodna waxay yiraahdaan nafta muuminka ee tagaalku baa soo galayaan ta muuminkuna way canaananaysaa saaxiibkeeda fi dunya wa fil aakhirah qofka muuminka naftiisu way canaananaysaa fi dunya wa fil aakhirah adduunyada inta waxay ku canaananaysaa gaabis baad samaysay waxa soo habooneed inaad samayso maad samaynin waxa soo habooneed inaad samayna waad samaysay canaantaas ugu jira aakhirana markuu tagana wuxuu tamaniyaa amalkiisii amal ka badan inuu samayn lahaa markaas ay nafti canaananaysaa gaalkuna adduunka naftiisu canaanan mayso khayr iyo wanaag ku canaanan mayso laakiin aakhira markuu tago ee uu arko naarti ee uu arko jannada iyo guriyihii jannada meeluhu ka degi lahaa oo laga wareegay markaas ay naftiisu hiifaysaa marka si kastaba ha ahaatee nafta canaan labaduna waa jiraan nafta canaanashada badan saaxiibkeeda canaananaysa ayaa Ilaahay ku dhaaranaya wala uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bin nafsi lawama nafti muuminka aad u canaanashada badnayd ee la tub'athunna waa la idin soo bixinaya waa la idin soo nooleynaya jawaabku waka ayahsabu ma wuxuu malaynayaa al-insaanu إنسان كي آخر بيني موحو ملينا ألا نجمع عينا ننسو كل منين عظامه لفيهيسا ويقع أورنشي إذا صرنا إذا كنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون ألا نجمع عينا ننسو كل منين عظامه لفيهيسا بلا ها نعم قادرين أي نقدر وان كراه أما نجمع وان سوكل مننا قادرين حالا هيكوي كره على أن نسوي حالا هي عد كرت حالا هي على أن نسوي إن نسن بنانه فريهيسا
waxaanu xataa awoodnaa iska daaye xubnaha waaweyn iyo lafaha waaweyn iska daaye faraha mafaasisha iyo xubnaha iyo anaamisha ku jira inaannu soo wada ururino mid walba halkeeda ku soo rakibno ayaan awoodaa baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala wax kala lumayaa ma jiraan bal yuriidu wuxuu doonayaa alinsaanu insaankaasi wuxuu doonayaa liyafjura an yafjura inuu beeniyo amaamahu ay maa amaamahu waxa ka horreeya maalintaa qiyaame ee ka horraysa ee sugaysa inuu beeniyo ayuu doonayaa yas'alu wuxuu su'aalayaa weydiinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaana waa goorma yowmulqiyaama qiyaamada maalintiisu waa goorma faidaa bariqa markuu wareero albasaru aragu markuu wareero bariiqada waxaa laga keenay marka la eego hilaaca marka la eego ayaa loo adeegsadaa ficilkan laakiin hilaaca markaad eegto maxaa kugu dhaca araggii buu kaa dafayaa waxba arki mayse araggii baa wareeraya saasoo kale ayaa aragga dadka ku dhacaysa maalinka qiyaame faidaa bariqa markuu wareero albasaru araggii markuu waxba arki waayo oo wakhasafa la madoobeeyo alqamaru dayixii uu madoobaado dayixii nuurkii ka tago oo wajumica la kulmiyo ashamsu qoraxdii iyo walqamaru dayixii la kulmiyo labadana meel baa laisugu geynayaa hadda isma haleelaanoo way isdaba socdaanoo way isdaba wareegaan maalinka qiyaamo iyagoo wada socda ayaa xaggan ka soo baxayaan labadiiba sida xaggan looga filayey ayay labadiiba isku lamaan oo midna aanu nuur lahayn waxaan ka soo boodaya wajumica ashamsu walqamar yaquulu wuxuu odhanayaa alinsaanu insaankii wuxuu leeyahay yowmaidin maalinkaas xilligaa maalinkiisa waa insaankii diidaya dafirayey ayaa wuxuu odhanayaa ayna almafaru ayna xaggee weeye almafaru meel loo cararaa ceeb baa dhacday waa la isqabtay wixii nolo sheegayaa run noqday waa kan cadaabkii alle xaggee u baxsannaa kallaa ha iska daaya waxaa ha iska dhaafo laa wasara ay laa malja meel la magangalaa ma jirto meel ilaahay laga magan galaa maalintaa ma jirto ilaa rabbika rabbiga xaggiisuunbuuna ahaaday yowmaydin xilligaa maalinkiisa almustaqaru meesha loo sugnaanaya yunaba'u waxaa loo sheegi alinsaanu insaankii waxaa loo sheegi yowmaydin xilligaa maalinkiisa bimaa wixii qadama uu horu marsaday iyo waakhara wuxuu dib marsadayba waa loo sheegayaa yacni adduunka intuu joogay wixii camalahe uu sameeyey ee loo qoray waa loo sheegi doonaa wa akhar wixii camalahoo adduunkii uu kaga yimi oo u soconayey bacda wafaatihi dhimashadiisa kadib wixii u soconayeyna waa looga warrami doonaa oo wixii sadaqa jaariya ee uu adduunka kaga yimina waa loo sheegi yani waa laga abaalmarin doonaa ama bimaa qadama wuxuu horu sameeyey fii bidaayati xayaatihi noloshiisa bilowgeedii wuxuu sameeyey waa loo sheegayaa wamaa ta'akhar wixii wamaa akhar iyo wixii yani noloshiisa dabayaaqadeedii wuxuu sameeyey waa loo sheegay bimacnaa wuxuu sameeyey oo dhan baa looga warramaya laba tafsiirba waa jiraan bal ilinsaanu iska daaya insaanku calaa nafsihi naftiisa basiira isagaabaa ku markhaatiya oo tashhadu calayhim yowma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum bima kaanuu yacmaluun fi suurati alfusilat ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogaga warramaya niqaash dhex maraya iyo dood dhex maraysa qofka marka yowma tashhadu calayhim markay ku markhaati kacaan alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum markay ku markhaati kacaan ayay odhanaya lima shahidtum calayna war idinkaan idin difaacayni cadaabka idinkaan idin kala cadhanaynay ila wax walba uu dafiray soo maa idinkaan islahayaan la cadaabin maxaad noogu markhaati kacdeen lima shahidtum calayna markaasay jawaarixdii iyo xubnihii iyo farihii iyo indhihii iyo xubnihiisii laga hadliyey ee mid waliba ka markhaati kacay wuxuu samayn jiray xumaantu samayn jiray ayaa odhanaya antaqana allahu aladii antaqa kulla shay maanta wax waliba waa hadlaya xayawaankiiba xataa hadlaya ridii geesaha lahayd baa ridii kale ka dacwoonaysa ilaahay cid walba ka hadliyey baa maanta naga hadliyey bay odhanaya yunabba calaa nafsihi naftiisa basiiratun kii ku markhaati kacaya weeye walow alqaa haba tuuro bimacnaa ha rido oo ha keena yacni macaadiirahu cudurdaaradiisa cudurdaarraba ha sheegto waxaanuu cudurdaara ha sheegto been bay sheegayaanoo maa ashraknaa walaa aabaa'unaa bay odhanayaan maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiirin bay odhanayaan
markay arkaan xaaladdu meeshay taalo wax ambiyaahi nooma imanin rasuul maanu arag cid noo digta maanu arag annaga iyo aabbayaasha iyo toona shariik maanaan samaynin fay ku akhrinaya oo wadanna uu u maleeyo qofkaa lagu soo xaadiray annahu waxaan hayaa alfiraaqu adduunya ka tegistii inuu yahay oo waltafat ay ku maranto assaaqu dhudhunkii uu ku marmo bisaaqi dhudhunkii kale ilaa rabbika rabbiga xaggiisa ayuunba yowmaidin xilligaa maalintiisa ahaatay almasaaqu kaxayntu xagga allunbaa laysu kaxaynaya falaa sadaqa ma rumaynin walaa sallaa mana tukanin walaakin hase yeeshee kadaba waa beeniyo watawallaa waa ka jeestay xaqii uma daba dahaba waa tegay ilaa ahlihi ahalkiisii xaggiisa ayuu aaday reerkiisii yatamataa isagoo isqaadqaadaya oo kibir soconaya wlaa laka fawlaa laka shar ha lagu xejiyo fawlaa isagaa ku mudane uma wlaa shar ha lagu xejiyo fawlaa isaga ayaa ku mudane waa saas isagaa kuu mudan ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa alinsaanu insaankii ma wuxuu malaynayaa an yutraka in laga tegay sudan yacni ciyaar sudan iyadoo la dayacay waxba la'aan in laga tegay miyuu malaynayaa alam yaku miyaanu ahayn nutfatan candhoof yar oo min maniyin mani xaggeed ka ahaatay manidaasoo yumnaa raximka lagu daadiyo uma dabeetana kaana uusan ahaanin calaqatan xinjir oo fakhalaqa dabeed alla aanu abuurinoo fasawaa abuurkiisii aanu siminoo ekaynin oo fajacala aanu ka yeelin minhu xaggiisa azawjayni labadii nooc addakara kii labaa iyo walunhaa tii dhadigayd alaysa miyaanu ahayn daalika kaasi rabbiga intaa sameeyey miyaanu ahayn biqaadirin mid kara calaa an yuxyiya inuu soo nooleeyo almawta geerida almawta kuwii dhintay kalaa bal tuxibuuna alcaajila aayaadkani waxay ka warramayaan dhaqanka ay leeyihiin dadkaan aakhara rumaysnayn iyo aakhara marka la tago dadku siday u qaybsamayaan dhaqankooda waxaa ka mida dadkaan aakhara rumaysnayn inaanay de aakhara u shaqaysan socay kama inaanay aakhara u shaqaysan maxaa yeelay aakhara qorshaha boguma jirto nimaan rumaysnayn in la soo noolaynayo oo ay aakhara jirto oo is-abaalmarin jirto oo naari jirto oo janna jirto oo jisira jiro oo acmaal la miisaamayo laba kafadood la kala saaraya ay jiraan ninaan intaa rumaysnayn dee ku talagelin halkaa u shaqaysan maayo ninka intaa rumaysanina waa ninkaa masaajidka soo gelaya ee cibaadaysanaya ee tukanaya ee wax iska hormarinaya ee aakhara iyo ilaahay ka cabsanaya bal laa yakhaafuna alaakhirana habeenkii dhaweyd baynu soo marin kallaa bal laa yakhaafuna alaakhira marka faasilka u dhaxeeya labadan qof waa kan ee camaliga haddaad marka aakhara rumaysan tahay oo runkaa taa aakhara u shaqayso waa diiday adduunyo unbaad isugu geysay soo maaha af iyo adin taag iyo tabar iyo tacab wax alla waxaad haysay adduunyo unbaad isugu geysay aakharana meeshaba waad ka saartay soo maaha iimaankaaga aad leedahay aakharaan rumaysanahay dib baa loogu noqonaya dhaqankaasi dhaqan nin aakhara rumaysan isaa ma yeelo nin aakhara rumaysan aakhara waa ku talagala waa u shaqaystaa wahakada marka saasayna tusinayaan aayadku kallaa bimacnaa alaa hooyay tanabahu aclamu ogaade bal tuxibuuna waxaad jeceshihiin alcaajilaysa adduunyadan degdegaysa ayaad jeceshihiin waa la wada jecelyahay adduunyada laakiin waxaa la rabaa adduunyadu inay noqoto sida ilaahayba subxaana wa tacaala uu sheegay wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhirata walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyadu inay darajada labaad noqoto darajada koobaad inaad siiso aakharo oo ihtimaamkaaga koobaad sidaad aakhare wax u heli lahayd oo aakhare u badbaadi lahayd waa inuu yahay bacda dalika waxaa la yidhi mataqaana wabtaqi fii ma aataaka allah wixii ilaahay ku siiyey oo dhan waxaad ka dhex raadisaa addaar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya gadaal bay ka imanaysaa bacda dalika marka adduunyaya waxaad raadraadi laakiin marka hore ta aakhirada ku dadaal watadaruuna waa ka tegaysaan alaakhirata aakhiran tii dambaysayna waa ka tegaysaan wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaa naadiratun mid barwaaqaysan weeye nadaaradu waa barwaaqada wejiga ka muuqata
qofka wajigiisa in laga garto inuu ku sugan yahay xaalad fiican oo faraxsan yahay oo nolol fiican haysto waa taaway naadira mid barwaaqaysan oo nadaara ka muuqata way ila rabbiha rabbigeeda xaqiisa naadiratun ti arkaysa way rabbiba subhanahu wa ta'ala ay muuminiintu arkayaan gaaladana waa laga xijaabayaa nabiguna kaleey salaatu wassalaam xadiidka fi sahihayn wa ghayri wuxuu ku miithaaliyay dayaxaas oo ma aragtaan dayax 14 saw arki maysan afreetobnaad jooga miyaa isku cidhiidhiyeysaan aragtidiisa maya sidaas oo kale umad rabbigeenu arki doonta marka Allah subhanahu wa ta'ala adduunka lagu arki maayo laguma arki karo nabi Muuse markuu codsadayna wixii ku dhacay fi suurati al-a'raf ka akhri laakin la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ba ilaahi subhanahu laakin aakhira waa lagu arkaya aakhira lafteeda la wada arki maayo dadka ahlul jannaha ayaa Allah subhanahu wa ta'ala arkaya quraanku arinta waa tilmaamaya ahadiith rabbuna oo ku soo aroortay dadka ahlu sunnah muslimiintuna way ku ijmaaceen hadith badan baa ku soo aroortay mu'tazilo qole la yiraahdo ayaa beenisay ila rabbiha rabbigood xaqiisa naadiratun tiifirinaysa way wa wujuhun wajiyal kala yawma idin xilliga maalintiisa baasira mid bedelan oo madow oo waxa weeye murugaysan way tadunnu waxay yaqiinaysaa maxay la murugaysan tahay tadunnu waxay yaqiinsanaysaa an yufcala in lagu sameeynayo biha ayada faaqira musiibad dabar jabisa in lagu sameeynayo ay yaqiinayaan akhray tagan Soomaa kalla idha balagat at-taraqi warhoy idha balagat markay soo gaadho nafti at-taraqiya kalxama oo waqiila la yiraahdo man waa kiraaqin ka wax ku akhrinaya wariyaa wax ku akhrinaya yaa daweynaya yaa garanaya la isweydiiyo oo wadanna isaguna uu yaqiiniyo annahu waxan ku habsaday al-firaaqu adduunya faaruqisti inay tahay adduunya ka tigid inay tahay oo waltafat ay ku maranto asaaqu dhudhun ku marmo bisaaqi dhudhunkii kale uu ku marmo markuu sakaraadayo labada lugood buu isku maranaya ama markay naftu ka baxdo ayaa de la kanfaya la isku aadinaya waxaynu nidhaahno isku duwida ama isku hagaajinta saasoo kale isku jebinta oo kale ila rabbika rabbiga xaqiisa ayay yawma idin xilliga maalinkiisa ahaatay al-masaaqu kaxayntu meesha la isu wadaya waa ila Allah xaqi ilaahay xukunkiisa la isu wadaya lagu kala baxaya fala sadaqa aayadkan si gaar ah waxa waramayaan bay tilmaamin culimada Abu Jahl dhaqan kanu laha fala sadaqa rabbigii marrumaynin ولا صلى من أتكنن ولكن هسه بدل كذا كذب وبيني قرآن كي دينتي وتولى إيمانكنا وكجستي ثم ذهب واتجه إلى أهله أهلك حق أهلك حق ذا أيو آذي عن غير كسيبو آذي يتمطى استجأوا كبر صعنية نبينا عليه الصلاة والسلام موت المام الزمن آخر كأني ومضى كبضان دون تضدك النوعنا dadka noocana oo socodka ku kibra ayaa zaman aakhirka umadeeda ku badan doona buu dabadna ciqaab waxa looga dhigi doonaa buu nabiga kaleey salaatu wassalaam kuwooda sharka badan baa lagu salidayaa kuwa khayrka badan marka arintaas oo farabadato oo kibirkaas oo bato marka kibirku shay madmuuma way markuu waliba afka dhaafo adinka dhaafo qofku marka uu kibirkiisa laga garto hab socodkiisa xataa waa aakhir daraja yatamadda isoo kibir soconaya awla laka wa kalima du'aa'iyya bimaana waylun laka ayaa lagu macneeyay macnuhuna wuxuu noqonayaa isugu soo biyo shubanaya adigu tafsiir dhowr ayaa ku jirta waxa isugu soo biyo shubanaya ay waliyaka sharru way sharhaku xigo sharhaku xigo way waxa wax ku xiga shar iyo ciqaab Allah ka dhigo asaas oo kale awla laka sharhaku xigo halaag haku xigsado فأولى وابكم مدنيهاي عذاب يعني كاس أيا كوجو هبونه ثم أولى هلاك هكو حكسدو أولى لك هلاك هكو حكسدو فأولى إسرابكم مضنو حق كوله وتكرار كنا توكيد مفايدين أيحسب ما وحو لينا يا الإنسان وإنسان ما وحو لينا يا أن يترك إن لقيتك سدى وحبلعان لا أمر ولا نهي ولا شيء انت الله أبورا لسكيتك يميو مودية ألم يكن يانو أهي نطفة عن دوف
min maniyin mani xaggeed ka ahaatay manidaasoo yumnaa la daadiyo raxmka lagu daadiyey uma dabeetana kaana miyaanu ahaanin calaqatan xinjir oo fa khalaqa alle uusan abuurin oo fasawaa aanu ekaynin oo simin xubnihiisii acdaadiisii oo fajacala aanu ka yeelin minhu xaggiisa yacni nudfada xaggeeda aanu ka yeelin azawjayni labadii nooc addakara kii laba iyo walunhaa tii dhadigayd alaysa miyaanu ahayn daalika allaha intaasoo dhan sameeyey biqaadirin mid kara miyaanu ahayn calaa an yuxyiya inuu soo nooleeyo almowta kuwa dhintay bala ilaahay subxaana wa tacaala waa awoodaa waa soo noolayn karaa bismi illaahi araxmaan araxiim suurat linsaan madaniya wa qiila makiya saddex qowl baa ku jira suuraddu meeshii ku soo degtay waa madani kulligeed maya waa maki kulligeed maya way kala qaybsan tahay aqwaashoosoo dhan a'immadu way ka leedahay suuradda mowduuceeda ugu badan ee ay ka warramaysaa waa qiyaamada gaar ahaan suuraddu waxay si aada uga warramaysaa oo suuradda badankeedu ka hadlaya ahluljanna wa awsaafuhum ahluljannaha iyo tilmaamahooda iyo jannada ilaahay u diyaariyey iyo iyadana tilmaamaheeda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aad ugu faahfaahin doonaa markaa la soco allah wuxuu yidhi subxaana hal ataa cala alinsaan hal ataa bimacnaa qad ataa waxaa ku yimi waxaa soo maray yani cala alinsaani insaanka waxaa soo maray xiinun xilli min addahri zamanka ka mid ah kaasoo lam yakun uusan ahaynba shay-an wax madkuura la sheego wax la sheegaba uusan ahayn ayaa soo martay xilli aanu jirinba ama xilli oo abuurnaa oo suuraysnaa laakiin aan nafi ku jirin ilaahay uun ka warhayey laakiin malaa'igta iyo khalaa'iqda kale aanay aqoonu ka warhaynin oo aanay sheegi jirin ayaa soo martay innaa annagu khalaqnaa waa abuuray al-insaana insaankii waxaan ka abuuray min nudfati amshaajin candhuuf biyo la isku daray candhuuftood ayaan ka abuuray nabtaliihi xaal aan imtixaamayno xaala muqadara la yidhaahdaayo xaal aan imtixaami doonno wey marka la abuurayo qudheeda imtixaan kuma bilaabanayo laakiin markuu arrintaa ahal u noqdaa la imtixaami doonaa fajacalnaahu dabeed waxaanu ka yeelay insaankii samiican mid maqlo oo basiiran arka mid maqlayo arkaya ayaanu ka yeelay innaa annagu hadaynaahu waxaanu u caddaynay assabiila jidkii baanu u caddaynay jidkii toosnaa jidkii ilaahay lagu gaadhayay ayaan u caddayna u bayaaminay immaa shaakiran xaaluu yahay kii shukrinaya wa immaa kafuuran ama kii gaalnimo badan ee aan ilaahay ku shukriyi doonin labadaasay u qaybsami doonaan aayaadkan waxay ka warramayaan bilowga suuradda allah subxaana wa tacaala bini aadamka abuurkiisii sidii suuraddii horeba intay kusoo dhammaatay oo kale ayay suuraddanina ka bilaabanaysaa maraaxil alkhalqi ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaad kaga warramaya marxaladdii ugu horraysay waxay ahayd marxalad uu aadam suuraysnaa oo aan nafta lagu afoofin ilaahay keligiina uu ogaa cid kale oo khalaa'iqda ka mida ama malaa'igta ka mida warkiisa haystay aanu jir lam yakun shay-an madkuura shay la sheego oo malaa'igtay ay ku isla sheegaan maba ahaynba taasi marxalad bay ahayd marxaladda labaad nudfa ayuu ahaa laba biyihii aabbaha iyo biyihii hooyadoo laysu keenay candhuuftaa yaree ka samaysantay ee isu tagtay ayuu ahaa uma tatawar calaqa uma mudqa uma insaanan kaamilan samiican basiira ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka yeelay ujeeddada intaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala uu uga yeelay jidkiina ilaahay waa u caddeeyey jidkii xaqa ahaa ee ilaahay subxaana wa tacala alle waa u caddeeyey ujeeddadan alla waa noo sheegayoo nabtaliihi baa ilahay yidhi subxaana waa si aanu imtixaano bini aadamka waxaa saa ugu gallay oo maqal ugu yeelo arag ugu yeelo xaqi ugu bayaaminay nabtaliihi waan imtixaaminaa ibtilaagaana labaa ka soo baxaya immaa shaakiran wa immaa kafuura labadaasuma bini aadamka u qaybsamaya qof shaakira iyo qof kafuura shaakirku waa kee waa mu'minka ilaahay rumeeyey yaqaana kafuurkuna waa kaa ilaahay diiday ku gaaloobay hal ataa cala alinsaan qad ataa waxaa ku yimi cala alinsaani insaankii waxaa ku yimi xiinun xilli min addahri zamanka ka mid ah kaasoo lam yakun aanu ahayn shay-an wax madkuura la sheego
إنا أنه خلقنا وأبوره الإنسان إنسان كي وحن كأبوره من نطفة أمشاج ويسوء ضعف سنتهي من نطفة أمشاج بيلا اسكدري عن دوف تود بان كأبوره نبتليه حال أن هيكوي امتحامية فجعلناه وحن كي اللي بقى ليدي سميعا مد مقله بصيرا أركه سميعا مد مقله يو حركه إنا أنه هديناه وحانو عدينا السبيل شدكي حقها أنا وأبيا مني marka hidaayadu waxa culimadu yiraahdaan waa laba qaybood hidaayatu bayaan wa hidaayatu tawfiiq hidaayatu bayaan waxa weeyaan waa in loo cadeeyo qofkii la tuso wadadii la tuso hidaayatu dalalati wa bayaan way in loo la tuso oo xaqi loo bayaamiyo taasi waa tan nabiga loo sugay kaleey salaatu wassalaam innaka la tahdi ila siraatin mustaqim layli hidaayada bimaana tawfiiq oo ilaahay inuu qofka waafajiyo oo uu ku ilhaamiyo xaqiina ilaahay baa la gaar oo waa taa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kaliya innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha waa sida xadiidkan ducaa al-istiftaax ducadan lagu furfurto khudbadaha iftitaaxan u jeeda ducaa al-istiftaax yana oran khudbatu al-iftitaax من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سوكما جرتو تاسوي هداية توفيقس آية المامسة إنا أنه هديناه وأن أبيا من وعدينا السبيل شدكي حقها إما شاكرا إما هذا حرف التفصيل بالليل هذا شاكرا حالا أي كنا سبسنتهاي ومفعول به هديناه كتشرة أيا ويا صاحب الحالكو إما شاكرا حاله يهي كي شكرية وإما كفورا أما كي قال ما بدن أو كفرين بدن أو أنك شكري دون نعموين كاس إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أنه اعتدنا وحنو ديارنا للكافرين قال ذا وحنو ديارنا سلاسل سلسلة mid kaliya silsilado mid walba silsilad gaar iyo waqlaalan xadka lagu garbaduubayo iyo wasaciira naarta hurays innal abrara kuwa baariyiinta ee rabbigooda adeecay yashrabuuna waxay ka cabi doonaan min kaasin koob khamraa bay ka cabi doonaan kaasoo kaana uu yahay misaajuhu waxa lagu barxayna kaafuura uduga kaafuurka la yiraahdo ka badal caynan cayn uu yahay cayntaasoo yashrabu ay ka cabayaan بها يدا عباد الله إلهي أدومه سوى كعبيان يفجرونها حالة دلعسانيان عينتي تفجيرا دلعسي ما الشيء دونان أي كدلعسانيان وكبرقسانيان يوفون كوفين يوي كوفي يوي بالنذر نذرك كوفي يوي ويخافون كو كعب سدوي يوما مال يوم كو كان ويهي شره شركيسو مستطيرا مدفضي وحوي يوم عظيما ويعني ممتدة منتشرة كانت هي شره شركيس مستطيرا أي منتشرا مدفذة يوم منتشرة ويطعمون وحيقودين يان الطعام cuntada ayay quudinayaan wayuطcimuuna an-naasa at-ta'aam mafcuulki koowaad ba xadfan wayuطcimuuna waxay siinayaan an-naasa dadka waxay quudinayaan at-ta'aam cuntadii ala hubbihi ma waa xagga dambe yaala mafcuulki wax xagga dambe inoo yaala mafcuulki kale wayuطcimuuna waxay quudinayaan at-ta'aam cuntadii waxay siinayaan oo quudsiinayaan ala hubbihi ma'a hubbihi jacalaantii samaceeda miskiinan ka miskiinka wayatiiman iyo agoonka wa asiiran iyo maxbuuska qaa'iliina iyagoo leh innamaa uuna nutcimukum waxaan idin quudinaynaa liwajhi illaahi alla dartii laa nuriidu idinka dooni mayno minkum idinka jazaa'an abaalmarin walaa shukuura iyo mahadcelintoonna inna annagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa min rabbina rabbigayo ayaan ka cabsanaynaa yowman maalinkaasoo inna annagu nakhaafu waxaanu ka cabsanaynaa min rabbina rabbigayo yowman maalin baanu ka cabsanaynaa cabuusan waji ururin badan oo qamtariiraan sharkiisu daran yahay waa maalin cabuusaho taynu hadeer soo marinay wey muttakiina fawaqaahum allahu alla waa ka badbaadiyey shara dhalika kaa sharkiisa alla waa ka badbaadiyey alyawmi ee maalinka وعطف البيان ولقاهم وحول كل سيئ نظرة برواقه وجهه كم مغنسية وسرورا فرحد وجزاهم وحكوا أبال مريه بما صبروا بسبب صبرهم
maadu waa masdariyo baaduna waa sababiyo bima sabaru ay bisababi sabrihim sabirkooda dartii wuxuu ku abaalmariyay jannatan janna ay degayaan iyo xariiran xariir ay labisanayaan muttakiina xalay ku dangiigaan fiiha jannada dhexdeeda cala al-araa'iki sariiro لا يرون ما أركيان لا يرون يجون أركين حالينا لا يرون حالا أركين فيها جنة دحية شمسا قرح ولا زمهريرا يقبوا قبوا درنتون ودانية حالة تهي جنة من السود وي عليهم كركوذ ظلالها هوس كذا أو ذللت لليلي قطوفها قوس الشديدنا تذليلا ليليد كوششدنا والوليلي ويطاف حال قلوريقا عليهم كركوذا بآنية ويل من فضة كهذي هي وأكواب كواب كاسو كان قوارير قرارضها صو من فضة كسميسا تاسو قدروها أي ملائكتاس هوشا وحل سارني جانقويين تقديرا جانقوين وحال الإكيسيين تقفلا وكدرقيو ويسقون وحال لغا ورابيا فيها جنة دحية كاسا كوب خمرابا لغا ورابينيا كاسو كان وياه مزاجها وحال لغو برحينا زنجبيلا قيت كازنجبيل كلا يراهدو عينا زنجبيل كبدل عينا عين وياهي waxa lagu barxay cayntaasoo fiiha jannada dhexdeeda ku sugan cayntaasoo tusamma lagu magacaabo salsabila magaceeda salsabil la yiraahdo bimaana sida cabideedu ay wanaagsan tahay ay nafta ugu roon tahay Allah subhanahu wa ta'ala aayaadkii hore waxa u dambeeyay bini aadamka in la imtixaamayo imtixaankana uu ka soo baxayo dadku inay laba noqdaan imma shaakiran wa imma kafuura shaakirkiisa loola dhaqmi doona aakhiro kafuurkiina see loola dhaqmi doona kafiirka warkiisa waa la soo gaabiyay inna a'tadna lil kaafiriina salaasila wa aghlalan wa sa'ira kuwaas kafuuriinta ee ilaahay ka kufriyay ee nicmadiisii ka kufriyay yaa ka abaal dhacay ilaahay wuxuu u diyaariyay naar saciira la yiraahdo iyo silsiladaas 70 diraac suuratul haqa inuu ku soo maro saa loogu duubayo iyo xarkaha adag ee lagu labadiblaynayo ciqaabtaas ilaahay u diyaariyay halkaas warkooda lagu dhaafay waxa aad loogu dheeraaday ahlul janna iyo waxay cabayaan iyo jannaday gelayaan ee dharkii labisanayaan waxa la sheegay marka jannada wixii ay ku galeen wax kamid ah jannada wixii ay ku galeen waxa koow laga bilaabay waxyaabaha ay jannada ku galeen waxa kamid ahaa yuufuuna bin nadri nadarka ay oofin jireen hadaynu yar halka sir kor taagno nadarka culimadu waxay u qaybiyaan ilaa 7 nooc ilaa 7 qaybood ay nadarka markay ka hadlayaan u qaybiyaan qaybta koowaad waxa la yiraahdaa nadrul ghadab waa nadarka qofka cadhadu ka keento وير عروضي مركز النذر إلهي بان كوجله هدانا وحاسمين أما النذر إلهي بان جله إنا وحاسمين أما أنا سمين كان النذر كنوع عس النذر اللجاج أما النذر الغضب اللي يهدا له حكم اليمين دار بوكدجيه دار أيو كدجيه هاي هدو وحي السماينا ده أحسن وحدو وحي ونكسن وسمين كرالها أو سمين خلاص هدو لكن سمين وايو وحال قدونا يا كفارة اليمين بالله ربا نوع لبادنا waxa la yiraahdaa nadru taa'a qofku inuu nadar taa'a oo ku nadro oo yiraahdo midalan ilaahi subhanahu wa ta'ala nadar buu igu leeyahay ama waxa nadar igu ah inaan bil soomo hadii ilaahay ii shaafiyo qofka xanuunsanaya ama inaan waxa sadaqadaysto ama inaan waxa soo kala sameeyo ka isaga ah waxa laazim in la oofiyo لازم إن لأوفيه نبينا عليه الصلاة والسلام وكيت من نذر أن يطيع الله فليطيعه حديث البخاري والقف كل نذرين إلهي أضيع marka hadii uu la yimaado oo nadarka oofiyada sida waajibka ana khalaas halkaas ku dhamaatay hadii oofin waayo oo wuxuun ku hor yimaadaan ama uu kari waayo ama marka maxaa la sameeynaya kafaara isagana ka laazimaysa كفارة وكفارة اليمين أو كلا أي كلازميسة نوع صدحات وحل هذا النذر المبهم
nadru lmubham waxa weeye isaguna waa nadru taaca unbuu qayb ka yahay nadru taaca ma aha yacni waa nadar uusan waxba sheegaynin isagu wax uu dalabahoo markaa uu codsanaya lama socdo wuxuu leeyahay lilaahi calaya nadrun bas wuxuu leeyahay markaa nadar baan galayaa oo waxaasan samaynaya haddii ilaahay waxa ay siiyo haddiidaasaan ku jirin marka waa nadar keliya nadar baan galay inaan bil soomo nadar baan galay inaan xaj ka tago nadar baan galay inaan neefkaas gowraco yani wax saasoo kale ah ayuu nadar ku gelayaa wax markaa uu dalbanayo oo allahumma salli uu leeyahay ilaahay hadduu waxa ay sameeyeen ma jiro ka nadri waxa la yiraahdaa nadri mubhama la yiraahdaa marka oofin iyo oofin kale ma kala laha waxa la sameeyay isaga waxa laga rabaa kaliya wuxuu la imanayaa in wixii afwan waxa laga rabaa inuu ilaa wax markaa uu ilaahay ka dalbaday ilaahay wuxuu ka dalbaday oo uu yiri waxaasaan ilaahay ka rajaynayaa inuu isiiyo si aan marka waxa ilaahay marka waxa isiiyo ayaan waxan sameeynaya ma jirto oo laba wuxuu is dhaafinaya ma jirto marka maxaa laga rabaa kafaaratul yamiin baa isagana laga rabaa oo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri man nadara kafaratu an-nadri idha lam yusammi kafaratu al-yamin sunan at-tirmidhi kafaratu an-nadri idha lam yusammi kafaratu al-yamin kafaarada nadarka kafaaradiisu haduusan markaa wax magacaabin oo wax sheegin wax ilaahay ka doonayo waa kafaratu al-yamin ka afraad waxa la nadru al-ma'siyah qofku inuu ku nadro inuu macsiyo sameeyo nadar baan ku galay inaan qofka dilo nadar baan galay inaan waxa weeye khamri xabo ila aakhir waxa soo kale marka hadduu waxa sameeyay nadarkaasi waa xaraan loo oofiyo ma sameyn karo ila xaraan ayuu ku nadray kafaara ayaa cagsigiisa waajibaysa nabiguna kaleey salaatu wasalaam saasu sheegay la nadra fil ma'siyah wa kafaratuhu kafaratu al-yamin ahmad ya abu daawud bawriyi sheekh albani waa saxiixinaya wax nadrihi kuma sugmo oo kuma xasilo yani la oofin maayo fil ma'siyati kafaaradiisu waa kafaaratul yamin nooca shanaad waxa la yiraahdaa nadrul mubah shaygu qofku shay mubah inuu ku nadro nadar baan galay in aan maalan marada iibsado nadar baan galay inaan gaari iibsado nadar baan galay inaan heblaayo guursado waxa soo kale waa shay iska mubah marka labadaas ma la kala dooraysiinaya inuu wixii sameeyo iyo inuu kafaara gudo inuu sameeyo iyo inuu sameyn waayo kafaaratul yamin uu la yimaado kalixaad waxa la yiraahdaa nadrul waajib wax waajiba inuu isku laazimo wax walba waajib ku aha shay waajiba inuu ku nadro inuu sameynayo nadar baan gelayaa ama nadar ba ilaahay nadar bi ugu leeyahay inaan salaada tukado ama bisha ramadaan soomo ama zakada bixiyo kaasi ma aqidmayo nadargaasi ma aqidmayo wax kafaaraan kama laazimayso maxaa yeelay waxaanu isku laazimiyay horaaba ilaahay ugu laazimiyay waxa isagu isku laazimiyay ma ahay isku laazimintiisa tii ilaahay baa ka horeysay ka toddobaad waxa la nadrul mustahiil qof wax mustahiil inuu ku nadro oo yiraahdo waxa igu nadar igu inaan shalay soomo mesela shalay oo la soo dhaafay soomitaankeeda ayaan ku nadrayaa saasoo kale haduu yiraahdo kaas nadrul mustahiil baa la yiraahdaa culimadu waxay yiraahdeen ma aqidmayo waxana ka ratimi maayaan hadalkaasina iska laqwi ayuu noqonayaa aan loo baahnayn oo aan de wax macnaa sameynaynin nadarku anwaacdaas ayuu u qaybsamaa marka waxa meesha ka soo baxaysa nadarku haday banaan tahay wixii qof markuu nadro haday banaan tahay wixii in la oofiyaana de uu oofinay wala iman haduu oofin waayana ama si kale uga baqla ama wixii baa wax banaan ahayn kafaaradii kafaaratul yamin ayuu la imanayaa ee saddex qaybood ahayd fa kafaaratuhu at'amu 10 masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ayada ilaahi subhanahu wa ta'ala ku sheegay waxa kamida waxay jannada ku galeen dadkani inay ahaayeen dad quudiya dadka gaajaysan ee baahan bay quudin jireen masaakiinta iyo agoonta iyo dadka maxaabiista ayay quudin jireen markaas waliba waxay u sheegi jireen inaanay wax abaal marina iyo wax abaal gud ah iyo wax mahadnaqa midna ka rabin jeedada ay waxaan u bixinayeen ay tahay ilaahay agtiisa inay wax kaga helaan ilaahay wuxuu yiri waxay say doonayeen baa loola dhaqmayo wixii ilaahay ay agtiisa ay ka rajeynayeen ilaahay waa siiyay waxay ka cabsanayeen oo maalinka qiyaamo ahaana ilaahay waa ka badbaadiyay inna anagu atadna waxaan u diyaarinay lil kaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay salaasila silsilado
iyo wa aghlaalan xadhka lagu garbaduub loogu xidhayo iyo wasaciira naarta huraysa inna alabraara kuwa baariyiinta daaciinta rabbigood adeecsan yashrabuuna waxay ka cabi doonaan min ka'sin koob khamraa bay ka cabi doonaan kaasoo kaana uu yahay misaajuha waxa lagu badhayna uu yahay kaafuura uduga kaafuurka la yidhaahdo caynan cayn ayuu yahay kaanada marka kaafuurka ayaa laga bedelaya caynan cayn uu yahay cayntaas waa il burqanaysa ishaasoo yashrabu ay ka cabi doonaan biha iyada cibaadullah ilaahay addoomihiisa tashriif wey yufajiruunaha iyagoo dilaacsanaya oo mida ayaa waxaa hal nebigu lahaayo cadbaa la odhan jiray ayaa la dhacay oo dabadna gabadh baa soo heshay oo soo kaxayso xagga nebiga madiina soo kaxaysay kadibna waa la soo caydhsaday waa la eriyaday kadibna nadar bay ku gasho waxay tidhi nadar alle igu ah hashaas haddii ilaahay igu badbaadiyo aan madiina nabad tago inaan bireeyo oo gowraco naala dartii u gowraco ayaa nadar igu ah haddaan ku badbaado hashana nebiga lahaa calayhi salaatu wasalaam iyadu may lahayn markaasaa nabiga loo sheegay calayhi salaam saasaa dhacday markaasuu yidhi bi'sa maa jazathaa buu yidhi war waxay ku abaalmarisay ayaaba xun buu yidhi iyadaaba ilaahay ku soo badbaadiyey ma waxay abaal uga dhigtay inay dhuunta ku dhuufato oo gowracday miyay abaal uga dhigtay arrintaas iyadoo shaqo kuma leh laysa laa nadra fi lmacsiya walaa fi ma yamlikuhu alcabdu nabigu alayhi salaatu wasalaam nadar ma aha nadar ma gelayo oo oofintiisu ma laazimayso qofka hadduu ku nadriyo macsiyo ama uu ku nadro inuu samaynayo waxaanu isagu deelahayn samayntiisa marka kafaaro unbaa ka laazimaysa marka nadarkaasay ilaalin jireen oo ama oofin jireen ama ka kafaaro gudan jireen wayakaafuuna waxay ka cabsan jireen yowman maalin kuwa aynu soo dhaafnay ee lalahaa tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira kuwaasoo kale ma aha ee waa ka bedelan yihiinoo wayakaafuuna waxay ka cabsan jireenoo ku tala gashanaayeen yowman maalin yoomka oo kaana uu yahay sharuhu sharkiisu mustatiira ay muntashiran mid fidaya wayudcimuuna waxay quudinayeen aطacaama cuntada waxay siinayeen calaa xubbihi jacaylkiisa lala qabo iyagoo jecel miskiin faqiirka yani wayatiiman agoon wa asiiran maxbuus kuwaas ayay quudinayeen قائلين يقول إنما أونا نطعمكم وحانو إذين قودنا لوجه الله ألا درتي لا نريد إذين كدون منكم منك جزاء أبا المرن ولا شكورا إيا مهد نقطونا إن أنه أبا القدانا إذين كمربنو إن حتى شكرنا ترعدانا إذين كمربنو إنا نخاف وحانو كعب سننا من ربنا رب غيو يوما مالما نكعب سننا عبوسا wajiga ururiya yani wajiga gaalada bedelo oo doorinaya oo qamdariira sharkiisu daran yahay إلا ساسا سوما محل قبل مريم مرك فوقاهم الله ألا وكإلالي فوقاهم وكإلالي الله ألا شر ذلك كاشر كيسة اليوم مالك كاسة شر ذلك اليوم مالك كاشر كيسة أي إلهي كإلالي ولقاهم وحولك كلنسي نظرة برواق وجهه ذا كم مغنسي وسرورا فرحت وجزاهم وحوك أبالي بما صبروا بسبب صبرهم صبر كود درتي صبر كإن جنا الله جهره عاو برو صبرك أما صبرك ضاعوا لو صبروا مع سياده لجا صبروا يعني قضاها إلهي قدر كيسوا لجو صبروا سمارت جنة لجو هلا بما صبروا صبر ده صبرين درتيد وحانوا كوابالني جنة هي وحريرة حرير دري هو نيانو حرير دري كشني إنه حريرة متجين حالي كدنجيجان فيها ودنجيج يفردين النوع عنه يعني وجوجل يو علاب لوجو تلاقي لي كدنجيجان وكفرديان marka nin raaxaysanaya oo degan oo aan hawli ku aadneen oo qaxar qabin sidoo u fadhiisto ayay u fadhiisanayaan la yarawna iyagoon arkaynin fiiha jannada dhexdeeda shamsan qorax wala zamhariiran iyo qabow darantoona adduunka marka joogto marna qorax iyo qabow un baad ka cabanaysaa marna qorax baad ka cabanaysaa iyo kulayl iyo jawiga kulul marna qabow iyo dhaxan un baad ka cabanaysaa labadaas un baad u dhaxaysaa adduunka marka joogto labada midina xaga ma yaalo wala zamhariiran iyo qabow darantoona allah ayna siiyo ودانية حال أي تهي من السودوي ها دانية مدو حالية مدو دويهي ودانية مدو دويهي ودويهي عليهم كركودة ظلالها هالكيد وذللت تل الليلي قطوفها
goosashadeedana tadliilan layliyad sida ay u goosanayaanna waa si ilaahay u sahlay oo ilaahay ku ilhaamiyey oo alle u fududeeyey oo midkii meel sare ku yaalay marka uu tamaniye ee uu damco intuu soo dhawaado ayuu hortiisa imanaya markaasuu goosanaya hadduu fadhiyo hadduu jifay hadduu soconayaba wayutaafu waxaa lagula tawaafa waxaa lagula wareegaa عليهم كركوذا بآنية كوبب وكوبك يحكوا عبية بلك من فضة فضة كسميسا يا أكواب كوبب كلو كانت هذه قوارير كأهذي قرارة كأهذي قوارير قرارة أو من فضة كسميسا يعني مادة قرارة لقى سمي مادة فضة كسميسا ويكل دويهين oo quraarad fidihi ma jirto macnuhu waxa weeye waa fido sida quraarada oo kale dusheeda gudaheeda laga arkayo waa quraarad sida gudaha sida waa fido maadada ay ka samaysan waa fido laakiin sida quraarada oo kale waxa gudaheeda ku jira banaanka laga arkaya waa saas weey taasoo qadaruha ay jaangooyeen kuwa kula tawaafay at-taifuun wal wildan al mukhalladun ay jaangooyeen taqdiiran jaangooyin oo koobkan iyo intuu leeg yahay iyo waxa lagu soo shubay iyo sida la isugu barxay waxa soo dhadhi wax la jaangooyay oo la diyaariyo sida ugu habboon loo dhigay way isqawna waxa laga waraabiyaa fiiha jannada dhexdeeda kaasan koob khamra koobka oo kaana uu yahay misaajuha waxa lagu barxay uu yahay zanjabiila geedka zanjabiilka la yiraahdo waa geed ilaahay subhanahu wa ta'ala kan adduunyada inoo yaalo de wax kasto oo adduunyada yaala iyo wax kasto oo jannada yaala hadii ay magaca iska waafaqaan ogow waxa ka dhaxeeya inuu magac yahay wax kale oo ay wadaagaan ma jiro midhaha iyo raashinka iyo cuntada iyo sharaabka iyo khamrada iyo wax xagga yaala ma iyo wax xaggan waa leeynagu soo dhaweynaa suurada iyo fahamku baa leeynagu soo dhaweynayaa ma aha wax is ageeya ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar عين وياهي زنجبيل كبدل عين وياهي عين تاسو فيها جنة دحدة كسوغان عين تاسو تسمى لغو مغعابو سلسبيل لغو مغعابو سيدا اي عان تهي هنغوريغا مريسو سلسكا و تهي مغعا لغو بخي والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب